waa tahay haddana waxaan doonayaa inaan idinla wadaago video kale oo aynu kaga hadli doono insurance-ga waxaa idiin soo gudbinaysaa videogan aynu kaga hadli doono insurance-ga baabuurta yaryar wakaalada caymiska ee Caato Insurance fadhigeedu uu yahay Columbus Ohio waayahay waxaynu maanta si wacan uga hadli doonaa bal qaabka ay u shaqeeyaan insurance-ga baabuurta yar guud ahaan marka inta aynan insurance-ga ka listiisa bilaabin waxaan jecelahay runtii inaad fahamtaan bal qaabka ay state-yadu runtii ay sharciyadooda uu kala yahay caymiska sharciyadiisa waxaa dejiya state-yada ayaa dejiya 52 state ee Mareykanka ama 50 state ee mainland-ka ku yaala markaynu ka hadlayno insurance-ga shuruucda uga taala 12 state oo kamid ahi waxay yiraahdaan gardarno ama laga gardarnaado wixii dhibaato ah ee aad geysato caymiskaaga un baad u dooranaysaa halka 38 kamidana qofka garta daran ay u raacaan wixii dhibaato halka ka dhacday marka insurance-ga baabuurta markaynu ka hadlayno guud ahaan hadii la soo koobo oo si yar dadku ay fahamsan yihiin aynu u soo koobno saddex qaybood ayaa loo qaybiyaa qayb waxay qusaysaa dadka kale wixii aad u geysato oo noqon kara burbur hantiyeed iyo dhaawac inaad u geysato wax loo yaqaano way liability coverage isla mar ahaantaana uu state-ku mar walba khasab ka dhigo qofku inuu haysto ugu yaraan liability qaybta labaad waxay qusaysaa adiga iyo ciddi gaariga kula saarnayd haddii ay markaas dhibaato idin gaadho qaybta saddexaadna waxay qusaysaa gaarigaaga wixii soo gaadha marka haddii aynu sii kala qaadqaadno qaybta koowaad aynu ku bilowno oo auto liability coverage waxa loo yaqaan haddii aynu ku bilowno qaybtaas waxay dabooleysaa haddii uu dhibdhaco wixii dhaawac iyo burbur hantiyeed ee dadka kale u geysato haddii aad markaa gardaran tahay qof ku dhacdo marka dhaawacaas waxa weeye dadka soo gaaray way taas dabooleysaa iyo wixii burbur hantiyeed ee aad geysato iyadoo inta badan hadda aynu halkan markaynu ka hadlayno burbur hantiyeed uu noqon doono gaariga wixii aad u geysatay burbura iyadoo aynu sii wadno runtii liability-gii waxa dhibaato ah aad geysato waxa daboolaya iyo qaabka ay insurance-gu u qaabeeyaan laba qaybood bay insurance-gu u kala saaraan qayb waxay yiraahdaan waa split limits ayay yiraahdaan oo yaqaanaan insurance-gu iyadoo markaa la kala qaadayo si qeexan mid walba loo tilmaamayo iyadoo markaa la oran doono calaa qof wixii dhibaato aad u geysatay intaasaan ugu badnaan bixin karnaa laba qof iyo wixii ka badan ama per accident ay mararka qaar ay yiraahdaan intaas ayaynu bixinaynaa oo yacni qiimo iyo qadar lacaga oo go-an isla mar ahaantaana wixii burbur hantiyeed aad geysato intaasaanu bixinaynaa marka kuwa iyaga aynu ka hadlayno oo kale waa qaabkan oo kale markay yihiin hadda halkan saad ka aragto wixii dhaawac aad cid u geysatay halkii qof waa intaa tusaalahan waa $100,000 laba qof iyo wixii ka badan wixii dhaawac aad u geysato waa $300,000 tusaalahan halka burbur hantiyeed uu ugu badnaan insurance-gaas uu bixinayo $100,000 haddii qofku markaa uu insurance-ga uu iibsaday caynkan oo kale uu ahaa insurance-gu marka qaabkay u qoraan oo coverage-ka page-kaaga ugu qornaan doono waa sidan aad halkan kaaga muuqato waa 100/300/100 oo inta halkan aynu kaga soo hadalnay weeye qaybta labaad waxay noqonaysaa waa combined single limit waxa loo yaqaano oo qaabkana combined single limit-ku sida halkan loo kala qaaday oo kale maaha iyadu wixii oo dhan waxay qiimo qadar go-an ayay ku oranayaan ayaan ugu badnaan bixinaynaa marka waxaad eegtaa bal ka aad haysato nooca uu yahay si aad u ogaatid bal waxaad eegaysaa coverage page-ka insurance-gaaga aad eegi doontaa qaybta labaad waxa weeye waa qaybta medical payment-ga caafimaadka loo yaqaano iyo isla mar ahaantaana haddii qof bilaa insurance ama qof insurance haysta laakiin dhibtii uu ku geystay ay muxuu ahay wada dabooli karin ayaynu tan kaga hadlaynaa marka PIP eray bixintaas waxa weeye waa personal injury protection waxay u yaqaanaan
oo markaas iyada ah haddii maaragtay uu adigu aad gar daran tahay oo kale aad cid ku dhacdo wixii ku kafargaraynayay markaa de insurancegaaga baa ku kafargaraynaya aad aadaysaa waa stateyada markaa for not at fault states PIP da waxay kafargaraynaysaa medical paymentskii haddii maaragtay caafimaad aad cisbitaal tagtay oo kale iyo wixii cisbitaalka lagaaga soo dallacay ee qadar lacaga ay kaa kafargaraynaysaa iyo meelaha maaragtay dee caafimaadka lagu dabiibo sida chiropractorka oo riixriixmada soomaalida u taqaano ayay kaa kafargaraynaysaa wixii lacag lagaaga soo dallaco marka qaar PIP da iyadu waxay bixisaa haddii maaragtay dee xoogaa dhibaatadii aad sheeganayso aad tidhaahdid dhib badan baa soo gaadhay ayay kaa bixinaysaa halka caafimaadku wuu ka guda yar yahay oo wixii maaragtay dhakhtar iyo haddaad meelaha tagto chiropractor iyo wixii maaragtay lacagi lagaaga soo dallaco ayuu bixinayaa PIP da waxaan ka tegay iyadu waxay kaloo kafargaraysaa oo marka qaar lagu daraa haddii dhaawac intuu kusoo gaaray marka aadan shaqadii aadan shaqaysan karin wixii wage loss ahaa ee kugu dhacay markaa ayay qadar kaa siinaysaa insurancegu dabcan dee iyo state walba sharciga uga yaala way kala duwan yihiin qaybtan markaa inagoo tii sii wadayno qof bilaa insurance hadduu kugu dhaco ama qof insurance haysta laakiin dhibtii kusoo gaadhay dhaawaca ahayd uu insurancega qofkaas wada bixin kari waayo waxaa markaa wixii dhibaato ah adiga kusoo gaadhay iyo dadkii kula saarnaa gaariga bixinaya insurancegaaga marka aad bay muhiim u tahay inaad haysato coverageka noocaasa inaad uu kugu jiro inaad hubiso aad iyo aad ayay muhiim u tahay waa waxyaalaha runtii maaragtay aad ay dadku ayna badiba ayna runtii ayna u fahamsanayn oo ma eegaan waxa laga iibinayo noocuu yahay isla mar ahaantaana qofka iibinaya run ahaantii maba weydiiyaan marka aad bay u fiican tahay runtii qof wuxuu iibsanaya inuu fahmo isla mar ahaantaana qofka uu wax ka iibsanaya ee agentka u ahi inuu yahay qof dee luuqadiisa yaqaano oo uu afkiisa kaga dheri karo waa markaa haddii una aqoonin luuqada ingiriiska way fiican tahay markaa qof soomaaliya haddii uu jiro inaad aado aad iyo aad baan idinkula talinayaa qaybta ugu dambeysa oo aynu kusoo koobi doono muxuu ahaayey videogeenan waa qaybta loo yaqaano collision and comprehensive oo markaa gaarigaaga ayay khuseysaa collision markaa haddaynu maqalno erebixinta collisionka waxaa weeye waa shil haddii uu maaragtay aad gaarigaaga uu galo isla marka ahaantaana adigoo gardaran haddaad shil gasho wixii haddaad wax ku dhacdo ama gaari aad ku dhacdo gaarigaaga wixii soo gaara ayay qaybtanu maaragtay ay dabooli doontaa burburkii gaarigaaga soo gaaray ayay qaybtanu dee dabooli doontaa marka khasab ma aha inaad gaari kale ku dhacday waxaad ku dhici kartaa geed baad ku dhici kartaa derbi baad ku dhici kartaa waxaa laga yaabaa dee mararka qaarna inuu qofku uu gaari kale ku dhaco marka comprehensiveku markaa wuxuu ku daboolayaa wuxuu bixinayaa wixii samays ah ee gaarigaaga uu u baahnaa haddii markaa dabcan wax samayskaas waxaa la socda marka insuranceyaashu badanaa waxay ay ku odhanayaan qadar lacagahoo maaragtay ayaad iska bixinaysaa ugu yaraan waxaad iska bixin karta ayaa jira kaba soo qaad tusaale ahaan inta badan ee averageka wuxuu ka bilaabmi karaa 0 ilaa 2,500 ilaa 3,000 mararka qaar uu gaari karaa laakiin halka isku celceliska ah insuranceyaashu si guud ay isula fahamsan yihiin waxaa weeye $500 ayaa badanaa laga dhigtaa taa micneheedu waxaa weeye haddii aad muxuu ahay gaarigaaga uu damage yar uu soo gaaro intaad meel yar ku dhacdo kaba soo qaad muraayadu ay kaa jabto oo kale intaadan markaa insurancegaaga ka furin claim aadan ka furin waa inaad hubiso inuu insurancegu uu kaa bixin doono gaarigaas samayntiisa leano haddii markaa intii insurancegii claimkii la furo oo qof loo soo diro qiimeyn lagu sameeyo markaa la ogaado in wixiiba ay ku kacayaan $300 deductible-kaagina isla markaa uu ahaa $500 insurancegu wuxuu ku odhanayaa samayso shilkaas isaga ah systemku kuu galay hadhowtana lagama saari karayo systemka
waa un la xiri karayaa laakiin gebi ahaanba lagama tirtiri karayo saameyn runtii kugu yeelanaya waxaa laga yaabaa ilaa 3 sano soo socota ilaa ugu badnaan kabaniyaashu inta badan waaba 5 sanadood ilaa 5 sano soo socota inuu saameyn kugu yeesho runtii qiimahaagi saameyn ku yeelan doonta khatartaadi guudna saameyn ku yeelan doonta marka aad iyo aad bay muhiim u tahay run ahaantii inta aydan claim iska furin inaad marka hore ogaataan maxaa deductible-kiina u yahay halka comprehensive-ka haddii aynu u nimaadno kambaniyadu badanaa waxay u yaqaanaan other than collision oo markaa waa wixii aanan markaa gaarigii adigoo wada iyadoon gaarigii la wadin wixii ku dhaca waxaas waxay noqon karaan gaarigii inuu gubto in la xado geed uu ku duldumo iyo wixii lamid ah iyo marka kaliya runtii iyadoo marka la wado ay khuseyn doonto ay tahay haddii uu duurjoog uu gaarigaagu markaa ku dhaco deductible-kii aynu kusoo hadalnay tan lafteedana sidaasoo kale unbuu u khuseeyaa marka guud ahaan marka haddaynu insuransiga isku soo duubno aynu dulmar ku sameyno wixii aynu kasoo hadalnay waa liability-gii aynu kasoo hadalnay oo dadka kale wixii dhaawac aad u geysato iyo burbur hantiyada aad u geysato dadka kale ka labaadna waxaynu kasoo hadalnay adiga iyo ciddii kula saarnayd waxa ku kafargaraynaya ugu dambayntana waa waxa gaarigaaga markaa muxuu ahaayey bixinaya wixii dee maaragtay soo gaadhay ee burbura gaarigaaga bixinaya marka 3 qaybood inaad kala fahamtaan insuransiga aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaa weeye intaa waxaan raacin lahaa waa rent car iyo roadside assistance rent carku dabcan wuxuu lagu siinayaa gaari aad sii wadato ayuu insuransigaagu ku siinayaa haddii uu coveragekaas kugu jiray inta gaarigaaga la sameynayo uu markaa meeshii lagu sameynayay uu yaalay halka roadside assistance-kuna uu haddii uu kugu jiro lagu siinayo towing haddii furuhu kaaga xidhmo taayir hadduu kaa banjaro mararka qaar haddii gaasto ay kaa go-do amaba intuu gaarigii kaa damo marka aad u baahan tahay in baterigii dee lagugu qabto lagu charge gareeyo kuwaasna inay kuugu jiraan inaad iska hubiso aad iyo aad ayay muhiim u tahay guud ahaan maanta intaas ayaynu kusoo gabagabeyneynaa videogan sida kooban aynu uga hadalnay coverageka gawaarida aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina fadlan asxaabtaada iyo dadka kale la wadaag